بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم IT tutorials iyo cashirkii 28 ee C++ ka cashirkan waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu alidmo class iyo object program ku saabsan haddii aadan fahansanayn ama aad rabtid inaad wax badan ka ogaato waa maxay class iyo waa maxay object iyo sida iskula shaqeeyaan cashirka ka horeeyay oo theory ah waa cashirka 27 kulaabo si aad u fahanto class iyo object waxa ay kala yihiin cashirkan waxaan ku qori doonaa programkii class ku saabsan waana programka ugu horeeyay ee C++ oo aan ku qoreyno class iyo object anagoo isticmaaleyna marka ma qori doono program aad u weyn waxaan qori doonaa program yar oo fudud oo aad fahmi karto qaabka ay iskula shaqeeyaan waxaan isticmaaleynaa marka ugu horeyso sidaan soo sheegnaba class keyword ayaan isticmaaleynaa si aan u declare gareyno ama definition aan class ugu sameyno kabacdina waxaan isticmaaleynaa product tusaale aan soo qaadanayo waa product dabcan tusaalaha rata qaadan kartaa product marka waxaan u qaatay class name ahaan ayaan u qaatay adiga marka wax kasta qaadan kartaa oo muxuu ahaa class name u qaadan kartid curly braces ayaad isticmaaleysaa oo semicolon wadato dhexda curly braces kan wixii ku jirana waxaa la dhahaa class body ayaa la dhahaa class bodyga marka waxa uu noqonayaa class memberska waxaan qaadanaa tusaale ahaan oo kale productiga item numberka iyo waxaan qaadanaa dabcan waa iska tusaale inaa ku fahanto kaliya iyo waxaan qaadanaa item nameka marka si aan u fududeyno saana ka dhigaynaa item name iyo item numberka qaabkan ayaan ka dhigaynaa camal case-ka ah okay marka integer waa item nameka waa integer sorry item nameka waa string item numberkana waa integer marka labadan waxay noqonaysaa class property-ga ama variableska aan class ku isticmaaleyno waxaa la dhahaa marka data members ayaa la dhahaa kuwan marka maxaa la dhahaa data members ayaa la dhahaa classka muxuu ahaa propertieskan ama variableska classka lagu dhex isticmaalo data members ayaa la dhahaa waxaa kaloo classka dhexdiisa lagu isticmaalaa member function waxa la dhaho oo tusaale ahaan oo kale methodka aan classka ku isticmaaleyno si aan usoo bandhigno item numberka iyo item nameka waxaan siineynaa void oo data type ah kabacdi waxaan leenahay show product oo ah functionka magaciisa functionkan ayaa waxaan u isticmaaleynaa inaan kusoo bandhigno datadan marka waxaan leenahay functionkan markaasna waxaa la dhahaa marka member functions ayaa la dhahaa member function ayaa la dhahaa oo classka marka class members la isku dhahaa dhamaantooda laakiin wixii variables waxaa la dhahaa data members muxuu ahaa wixii members dabcan sana ka dhigno wixii marka oo functions soo galaya method ayaa la dhahaa method iyo function dabcan method waxaa la dhahaa wixii objects la xiriiro kuwan oo kale method ayaa la dhahaa marka functionskana way ka duwan yihiin objects lama xiriiraan marka member function ahaan waa loo soo qaadana waxyaabaha sim ayay sameynayaan marka intaan ma shaqeyn doonto oo arki doonaa waa hadda private waxa la dhahaa ay ku jirtaa isticmaalka oo classka ma la isticmaali doono laakiin class definitionkii waa sameynay class definitionkan wuxuu ka kooban yahay variableska aan isticmaaleyno iyo functionkan oo variableska soo bandhigi doonto maxay soo bandhigaysaa functionkan variableska tusaale waxay leedahay item numberka waxa uu noqonaa item numberka ayay soo bandhigaysaa waxaa leenahay item numberka ayaan soo bandhigaynaa okay kabacdi waxaa leenahay endline cout kale ayaan soo bandhigaynaa haddana waxaa leenahay item nameka ayaan haddana waxaa leenahay item nameka waxa uu noqonaa kabacdi waxaa leenahay item name asna waxaan siinaynaa endline okay marka functionkan shaqada ay qabanayso waxay tahay datadan inay soo bandhigto ayadoo marka waxaa la dhahaa member function ayaa la dhahaa waa methodka classkan ku jira kana waa data members ayaa la dhahaa marka hadda marka classkii definitionkiisa waa sameynay waxaa inoo dhamin inaan sameyno inaan declare gareyno objectigii classkaas lagu isticmaali lahaa ama instancega classkaas waxaa soo qaadanaysaa class name oo product hadda aan usoo qaadanay kabacdi waxaan siinaa marka objectiga oo magaca aan u sameynaa ani b1 ayaa hadda qaatay adiga wixii aad rabto aad u samaysan kartaa marka oo wax hadda qasab ah maahan laakiin class nameka iyo muxuu ahaa inaad soo qaadatid marka hore kabacdi markaas aad object nameka aad declare gareysid sidan ay u isticmaaleysaa objectigan marka waxaan hadda waan sameynay objectigii iyo classka waan sameynay waxaan ku xiga marka waxa la dhaho initialization oo waxaan sameyneynaa
p1 ayaan soo qaadanaynaa oo objectigii classkaas ah. waxaan rabnaa inaan access gareyno datadan marka sida tusaalehaan item numberka item nameka. waxaan sameynaynaa marka dot ayaa isticmaalaysaa marka access ku sameynaysid. marka dotaas waa operatorka lagu isticmaalo objectigan loo access gareeyo datadan memberska iyo member functionska. waxaan wacaynaa marka item number ayaan leenahay. item numberka waxaan siinaynaa 1001 tusaale ahaan. b1ka ayaan soo celinaynaa. item name ayaan haddana u wacaynaa. item nameka marka waa string dabcan la soco. stringna quotes inuu ku jiro waa double quotes inuu ku jiro waa. tusaale waxaan leenahay coffee ayaan leenahay item nameka. hadda initializationna waan sameynay oo datadii muxuu ahaa labadan item muxuu ahaa waxaan u assign gareynay values ayaan u assign gareynay. waxaan rabnaa marka inaan soo bandhigno. sideen kusoo bandhignaa? waxaan leenahay tusaale oo kale first item ama itemka ugu horeeya waxa uu noqonaa ayaan leenahay. kabacdi ayaa inta waxaan leenahay b1 dot. haddii aad rabtid marka inaad muxuu ahaa aragtid valueskan inaad aragtid haddaad rabtid waxa u waxaysaa functionkan sababtoo ah ayadaa waxay daabacaysaa valueskan. mar walbaba class kala isticmaalayo objectiga functionka ayaa waxaa loo soo maraa valueska loo soo maraa. waana baran doonaa hadda muxuu ahaa programkan waa tusaale kaliya aad ku fahmayso. programka kugu horeeyay class iyo object la isticmaalayo. b1 dot markii aan dhahno hadda item number ma rabno item name ma rabno. waxaan rabnaa show product. saas daraadeeda productgan in aan aragno valueskan itemskan aan aragno ayaan rabnaa. kabacdi waxaan leenahay semicolon. programkan hadda error ayaa ku jira oo sababtoo ah datadan classka ku jirta ayaa waxa ay tahay private. haddaan programka compile dhaho waa arki doontaa error ayuu soo saaraa. wuxuu leeyahay error int product item number is private within this context. it means micneheedu waxa uu yahay by default classka waxa uu yahay private. datada ku jirta lama access gareyn karo. waana waxyaabaha C++ka ay muxuu ahaa uga fiican tahay C programmingka sababtoo ah classes ayaa la isticmaalaa. classkana datadiisa waxa uu leeyahay secure ama amni waaye oo layskama isticmaali karo classka banaankiisa lagu isticmaali karo. si aan marka u sameyno marka fasax u siino in la isticmaalo datadan banaanka laga isticmaalo waxaan sameynaynaa access modifier wax la dhaho oo waxaan isticmaalaynaa ama access specifier wax la dhaho. meeshaan ayaa waxaan ka dhigaynaa public ayaan leenahay. kabacdi waxaan isticmaalaynaa colon. inteen ku isticmaalaynaa la soco. haddii aan inta ku isticmaalo wax allaala wixii publican ka hooseeya waxay noqonayaan permission. waxay u haystaan in banaanka laga isticmaalo. haddii tusaale ahaan oo kale publican aan inta ka sameeyo micnaheedu waxa ay tahay intan waa private laakiin functionkan ayaa isticmaali kartaa. sidaas ayuu noqonaa marka. mar walba marka waa inaad fahantid public meesha aad dhigtid wixii ka hooseeya ayaa isticmaali karta. hadda classka permission uu haystaa. haddii aad tiraahid programka combine haddii aad tiraahid programkan hadda uu shaqeynaa. datada noo soo bandhigaan leenahay. sida hadda ujeedidba datada waa lasoo bandhigay oo waxaa la dhahay first itemka ugu horeeya item numberkiisa waa 1001 item namekana waa coffee sida hadda ujeedidba. marka item numberkan iyo item namekan waxay isku wada yihiin hal object isku wada yihiin. saa u fahmaysid si fiican u fiiri. waa objectigan koowaadka oo b1kan oo laga sameeyey classkaas oo designka ah ayaa waxa uu noqonaa marka wuxuu wataa halkaas objectiga marka wuxuu wataa item number iyo item name ayuu wataa. tusaale haddii aad rabtid object kale inaad samaysid ama item kale inaad samaysid haddii rabtid waxaad ku qasban tahay inaad object kale samaysid. tusaale b2 ayaa leenahay. b2 markaad dhahdid waxaan soo qaadanaya marka sidii b1 koo kale ayaa u initialize gareyne. waxaa leenahay tusaale ahaan oo kale item meeshaan item number 1 markuu ahaa marka waxaan ka dhigaynaa b2 kana itemka ma isbedelaayo b2 kana waxaan ka dhigaynaa 2 kana waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay box ayaa leenahay. si aan usoo bandhignana marka waa inaan intaan soo qaadanaa oo haddana aan dhahnaa inta copy paste aan inta ku dhahnaa si aad u fahantid aan kala sisikano. so kan wuxuu daabacaa objectiga koowaad oo item numberkan ayuu daabacaa coffeega iyo 1001. kanna waxaan rabnaa inaan dhahno second item inaan dhahno kabacdina b2 aan daabacno oo functionka u wacno. programka haddii aad hadda ran garaysid waxa uu ku tusaa marka second item ayuu ku tusaa. first itemka waa muxuu ahaa item 1001 item nameka waa coffee. second item waxa uu ku leeyahay 1002 item namekana waa books. meesha marka inaad fahantida muhiimadda ay tahay. waxaad kor kusoo sheegtay laba properties ama laba variable
oo kale ah item number iyo item name ayaa kusoo sheegtay. waxayna ku jiraan classkan waxay ku jiraan oo muxuu ahaa design aad samaysata ah ama model aad samaysata ah. haddii aad object create gareysid objectigaas waxa uu qaadanaa marka labadan properties ayuu yeelanaa. object kale haddii aad create gareysid labadan properties kale ayuu yeelanaa. waxay ku xiran tahay marka b1 kan iyo b2 dan way kala madax banaan yihiin. laba object oo waxa waaye laba property kala wata waxay wadaagaan kaliya designka ama shape-ka ama qaabkan ayay wada wadaagaan. tusaale waxaa ka fahmaysaa show product waxa u wacday tusaale fiiri b1 markii aad dhahday show product ayaad u wacday oo ah functionkii ku tusaysa datada waxay kusoo bandhigaysaa datadan b1 ka ku jirta oo ah 1001 oo first item ka ah. show product hadaa mar labaad u wacid adigoo b2 isticmaalaya datadii hore ma soo bandhigayso sababtoo ah objectigan propertygiisa ayay fiirinaysaa datada ku jirta ayay soo bandhigaysaa. marka qaabkan waa qaabka horta class iyo object ay u shaqeeyaan. meeshaan maadaama aad product laba mar ay soo laabanayso b2 da waxaa samayn kartaa inaad b2 da inta ku muxuu ahaa comma intaad dhahdid aad lenkaas ku declare gareysid wana shaqeynaa oo wax cilad ah ma yeelanayso sababtoo ah maadaama product ay ka wada siman yihiin classka ay ka wada siman yihiin objectskan ay kala duwan yihiin qaabkan waa u declare gareyn kartaa. kan waa initializationka oo object 1 waaye oo b1 kaas ah. kanna waa initializationka object 2 oo b2 ga ah. kan waxaa lasoo bandhigaa datada b1 ka ku jirta ayaa lasoo bandhigaa. kanna waxaa lasoo bandhigaa datada ku jirta b2 da. mid walbana waxa uu haystaa ama uu isticmaalaa designkan oo productiga aad u samaysay ama modelkan aad isticmaalaysid. item numberka iyo item nameka way ka wada siman yihiin macnaha variable ahaan ay uga wada siman yihiin la soco laakiin datada way kala duwan yihiin sababtoo ah item number waa 101 marka coffee-ga fiirisid item numberkiisa waa 101 books marka fiirisidna item numberkiisa waa 102 marka way ku kala duwan yihiin datada laakiin variables kala isticmaalaya magacyadoo kale item number name sidii u isticmaalaysa iyo show product laakiin datada markii la dhaho objectigaas initializationkiisa la fiiriyo ayuu ku kala duwanaanaa. marka qaabkan waa qaabka classka muxuu u isticmaalaysid objectiga. marka koowaad class keyword ayaa samaysanaysaa inta waxaa samaysanaysaa class nameka adiga waxaa rabtaa u qaadan kartaa bracket curly braces ayaa samaynaysaa oo la socdo semicolon la socdo. publican waxaa la dhahaa access specifier haddii aan private ka dhigo it means macnaheedu waxa uu yahay ma access garin kari error ayaa imaanaya. by default haddii aad private ka dhiginna asaga iska dhigaayo. haddii meeshaan aad private ku qorin asaga private qaadana haddaa ku qortidna waaba ku qortaa laakiin public haddaa ka dhigtid waa access gareyn kartaa oo banaanka waa ka access gareyn kartaa. laakiin inta badan waxaa la sameeyaa functionkan ayaa waxaa laga dhigaa public ayaa laga dhigaa functionka la isticmaalo classka marka lagu jiro methodska classka ku jira ama member functionska ayaa public laga dhigaa. datada laakiin oo variableska class ku jira waxaa laga dhigaa private sababtoo ah mar walba ma la rabo variableska inay isbedelaan oo waxaa la rabaa variableka haddii loo baahdo in la isticmaalo in functionskan loo soo maraa si toos ah variable looma soo fasaxo. laakiin anaga tusaale ahaan aan meeshan kugu soo bandhigaynaa laakiin waa arki doonaa casharadu soo socdo iyo qaabkaas ku arki doonaa. marka hadda private-ka waan ka bixinaynaa waxaan ka dhigaynaa public ayaan ka wada dhigaynaa. public marka ka dhigaysid maxaa samaynaysaa access modifier la dhahaa iyagana waa baran doonaa. waa public colon ayaa isticmaalaysa waxay ka mid yihiin iyagana waxyaabaha oo secure ka dhigaya datadaada waa public iyo private iyo protected ayay kala yihiin. intaan waxaa la dhahaa data members ayaa la dhahaa. intaanna waxaa la dhahaa member function waa methodka aad classka ku isticmaalaysid. waa mar walbana classka waxaa u dambeeyo semicolon ayaa u dambeeyo. cashirkan 28 waxaan kusoo qaadanay qaabka classka iyo muxuu ahaa objectska loo isticmaalo oo tusaale aan kasoo sameynay. casharada xigana waan sii faahfaahin doonaa classeska anagoo waxyaabo badan kusoo bandhigi doono. meeshaas ayaan ku sameynaa. wabillahi tawfiiq.